الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وإخواتي وأولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa sharaf noo caawa in Sheekh Maxamed Rashaad oo Kanada nooga yimid oo halka marti noogu yahay oo noo soo jeedinayo xaqiiqdii mowduuc aad qaali ah oo kanzi ah oo cid kastaba ay u baahan tahay inay ka faa'iideysto, khaasan shabaabka iyo waalidiintaba. waayo shabaabku waalid bay ku hoos nool yihiin, waalidkuna wuxuu gacanta ku hayaa shabaabka. marka irshaadaad badan in la helo, tawjiihaad badan in la helo waa shay aad iyo aad muhiim u ah. ciwaanka muxaadarada sheekha caawa uu noo soo jeedin doono haddii alla idmo waxa weeye dhaqanka dhallinyarada iyo waddamada reer galbeedka. marka waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran, muhiim u ah. waxaana noo sharixi doona haddii alla idmo sheekheenna Sheekh Maxamed Rashaad ayaanu haddana ku wareejin doonaa haddii alla idmo adinka iyo sheekha dhexdiina. وقت مي وهيان مريم المحاضرة لا اوكي بس وي تاسن قليا تاسن ما محاضركم مقرن سوما محاضرة ما لكن شيخ يوسف محاضرة يوسف الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا لها الدمان للي يرد رقي الدمر با يويلك رقي الدمر با. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع عن وحو كذا شهرنتي سنة كي هوري أينو للي يرد قبل يويلالبا أينو مزايد كوكولا نهوستيس waana naqaashnay xoogaa yar baanu doodnay. marka waxa ay soo baxday dhalinyaradu inaanay fahmaynin af Soomaaliga aan waaweyn lagu hadlaayo oo muxaadaraadka lagu jeedinayo inaanay fahmaynin. garna waa u leeyihiin sidaas. maxaa yeelay canuga ku dhashay Sweden ama Denmark ama Norway ku dhashay ama Finland ku dhashay ama Yurub taanba ku dhaxay dhashay, يعني ما بران كرو أما ما فهمي كرو أف سوماليغا، يعني ما فهمي كرو، يعني ما فهمي كرو حنو فهمي كرين مركو دمعينه وترجمنا وحو ترجمة يا ترجمة أو دايركتي أو ترجمة يا مثلا الميرون دلا وحا ليري نكاسي ومدحوينه أيانري مركاسي تيري قبر يرون دلاي Yeah, means that big head, he has a big head. madaxweyne uu haystaa. waa madaxweyne markii la waxa uu qaatay madaxiisu inuu weyn dadka kale ka weyn yahay. waa tarjuma oo direct ah way marka lama yaabi kartid. يعني sidaas oo kaleeto
yaa wuxuu rabaa mid yar baa wuxuu doonayaa inuu weydiiyo uu yidhaahdo hebel ma joogaa wiil yaroo teenager oo sida kuwaan oo kaleeta wuxuu doonayaa inuu weydiiyo wuxuu rabaa hebel ma jooga meesha ku dheer wuxuu yidhi hebel may xaggow yaallaa hebel xaggow yaallaa yacni joogitaankii waxa uu tarjumtay oolitaan sidii object oo kale meel yaalla waa gartiis weeye waa iskaga darsan yahoon wixii luqadii runtii waxay ku tahay gajow ay ku tahay marka mashaakilka markaan ka hadlayno dhallinyarada awalan waxaa haysataa mushkilad xagga languageka luqada xaggeeda mushkilad aha haysataa kow number 1 mushkilad xagga luqada ayaa haysata oo wixii aabbuhu u sheegi lahaa iyo hooyadu u sheegi lahaa xataa af soomaaligii si saxa uma fahmaayo canugan waalidku ma rumaysna ilmahaagii kuma fahmaayo ma rumaysna marnaba ilmuhuna ma dhihi karaan hooyo ama aabbo kuma fahmayo kuma afgaranayo ma dhihi karaan marka waxa weeyaan conflict iyo halkaa ka dhalanaya misunderstanding badan iyo halkaa ka dhalanaya marka mushkilad iyo problem oo ka dhashay xagga languageka waxaa kaleetoo problem ah oo mushkilad ah runtii environmentiga ama meesha uu ku nool yahay qofka nafteeda waa mushkilad waxay u tahay ilmahani waxay ku nool yihiin environment hooyada iyo aabbuhuna waxay ku soo noolaayeen environment kaleeto ama dhaqan kale iyo dhul kale ayay ku noolaayeen marka is-afgarasho waagaas oo ku saabsan environmentiga iyo dhaqankeedana waa mushkilad kaloo labaad weeye problemka xagga environmentiga waa mushkilad kaloo labaad weeye waxaa kaloo mushkilad saddexaad ah oo inaan fahmna aan u baahannahay ilmiga yari ee meeshaan ku koray wuxuu haystaa wax la yidhaahdo raw model ayuu haystaa raw model wuxuu haystaa qolaha ku daydo ayuu haystaa qoladuu ku dayanayaa hooyadana maaha aabbahana maaha ilmaha classmate-ka ee society-ga ayuu ku dayanaya ilmaha classmate-iska classmate-ku waxa weeye ilmaha ku kalaaska ama ku fasalka oo wax la dhiganayo ayuu ku dayanaya xagga dhaqanka ayagoo koobiyeynaya marka culture-ka adigu aad la rabto oo ah culture-kii islaamka waxaa uga xoog badan culture-ka asagu oo ku nool yahay dhexdiisa uga xoog badan waanu imaan doonnaa kaa culture-ka markaan leeyahay dhaqanka dharqaadadka hadalka socodka cuntada naftigeeda waxa weeyaan waa dhaqan iyo culture ilmahan saamaynaya oo ka duwaya waalidkoodii ka duwaya oo ka soocaya weeye waa mushkiladda afaraad weeye mushkiladda shanaad waxa weeye waxa la yidhaahdo dhaqaale raadinta annagu dhaqaalaha muslimaan nahay waxaani waa xalaal waxaani waa xaaraam ayaannu ku soo kornay qaar badan oo waalidiinta ka mid ihi weli uma haystaan inay tahay mushkilad weyn marka dhaqaalo samee ilmaha wuxuu ku yahay problem buu ku yahay dabcan ilmihii mushaar ma qaataan oo jeebkooda lacagu kuma jirto marka uu lacag u baahdana hooyaduu baryayaa ama aabbahu baryayaa waxaad ka soo qaadaa ilmiga yar markii iskuulka ay ka jirto maantayto ay ka jirto wax seel ay ka jiraan isii 2 coronis ama 10 coronis 10 coronis 20 coronis 15 coronis iyo hooyada ka baryayaa maxaa yeelay waxaa ka jirta pizza lagu gadayaa iskuulkii bibsi baa ka jira ilmihii kale waxbay gadanayaan hot dog baa ka jira anigu ma gada kari wuxuu isu arkayaa disaster buu isu arkayaa haddaan la siin lacagta in la baabi'iyey oo duku daanku laga dhigay therefore marka parents kuma dareensana canugan haddaad lacagta u diido iskuulka oo aadaya haddaad u diido meel kale ka raadiyo ayuu isku dayayaa ogow ma dareensana waalidku ma dareensana arrinta iyada waa mushkilad kaleeto wey waxaa mushkilad kaleeta canugaani daada uu leeyahay language kaleeto uu leeyahay languagekaas waxa weeye language oo xagga indhaha ah
wuxuu leeyahay wax oo wax barayo xaggaas ah oo leeyahay wax ka arkayo gabar teenager iyo wiil teenager oo isku haysta hadduu arko iskuulka gidaarkiisa ama dariiqa isku haysta oo sex iska raadinaya ama jinsi iska raadinaya markuu arko haba qariye waa ku talaalanta arinta ayada intaasoo mushkiladood oo dhaqaalaha iyo sexka oo jinsiga language-ka environment-ga oo ku nool yahay ilmahaasi intaas waxay u yihiin mushkilad oo ilmuhu ay la dhaqmayaan la joogaan luqadii aanu soo noqonno hooyadii iyo aabihii ilmuhu waxay kula hadlayaan marka intaan cilaajinayna waa intaa weeye oon ka hadlayno luqadii marka ugu horreysa waxaad ogaataa ilmahaagu iskuul Soomaaliya ma tagaan waxa ay tagayaan waa iskuul waddanka ay ku nool yihiin ay tagayaan luqada ay wax ku dhiganayo oo wax ku fahmayo oo wax ku qoranayo oo communication-ka ku samaynaya waa language ka duwan language-kii ama luqadii hooyadii iyo aabihii ka duwan wey waxa la joogaa oo u keenaysa sidaasi subaxii ilaa iyo galabtii qofan hooyadii ahayn ama aabihi ahayn oo la hadlaya oo macallin ah ama classmate oo ardaya oo la hadlaya dukaanka wax ka gadanayo recesska qolada raacayo ama break-ka qolada raacayo cuntada marka uu cunayo marka jogging-ka la samaynayo la kaftamayo canugaani wuxuu isu arkaa dambo isu arkaa ama baaba abo isu arkaa damka naftiisa aan noqonin baaba abo isu arkaa hadaanu ilmahan ku dayanin language-koodii waxooda marka language-ka adigu aad kula hadlay ama luqada aad kula hadlayda ilmahaaga waxa ka xoog badan luqada society-ga iyo iskuulka iyo communication-ka ayaa ka xoog badan waa problem weeye ma garan kara marka luqadan aad ku hadlayda meaning-keeda ma fahmi karo ilmahan waxa aad ka fakaraydo maskaxda aad ku haysay dhaqankaad maskaxda ku haysana maskaxdiisa kuma jiraan waxa timid marka language-ki waa halka weeye wuxuu soo arkayaa marka ilmagu markuu luqadii barto 3 sano 4 sano iskuulka ku jiro in uu ka tacliim badan yahay luqada oo wadanka uu joogo aabaha iyo hooyadaba inuu ka tacliim badan yahay ayuu soo arkayaa wuxuu isku dayayaa marka inuu ayaga u tarjumo hooyada u aqriyo warqadaha u imaanaya aabaha inuu u aqriyo warqadaha u imaanaya biilalka inuu u sameeyo inuu uga jawaabo telefoonka inuu answering machine-ka codkiisa ku duubo maadaama luqadii garanayo wuxuu isu arkaa dadkaani inay yihiin dad dambeeya oo aan fahmaynin wadanka iyo luqadiisa aan fahmaynin isu arkaya therefore confidence-ga uu ku lahaa ama trust-ga uu ku lahaa ama aaminitaanka uu ku lahaa hooyada iyo aabaha agtooda wuu yaraanayaa markaa ogow adiga ma dareensanid sidaa laakiin wuu yaraanayaa waxaad u timaadaa oo aad iyo aad mashaakil waa markaa environment-ga ilaa waa mushkiladii labaad weeyaan environment-ga marka wuxuu rabaa hooyadii waxay rabtaa aabihii wuxuu rabaa luqa aanu ilmihii af Soomaali lama barin kalaas Soomaaliya looma dhigo mujtamaca Soomaaliya luqadii ku barta looma diyaarinin hooyadii iyo aabihii ayagoo iskuulkan dhiganayo luqada inay la fahmayaan kala tusinaya ma arko wuxuu soo arkayaa markaasi inuu yahay isolated inuu yahay soo arkayaa yani mid go'doonsan oo meel gaar u baxay ayuu soo arkayaa ilmuhu wuxuu isku dayay inuu ka baxo marka labo environment-ga uu ku nool yahay markaa dhaqanka meesha uu ku bii'ada uu meesha uu ku nool yahay qofkii meeshaas macallin ay u tahay ilmagaas macallin waxay ugu tahay wuxuu doonayaa waa mawjad socota iyo dabayl socota oo ka xoog badan asaga mawjada iyo dabayshaas inay discrimination ku samaysana ma rabo wuxuu doonayaa marka ilmaha ayaga asaga lamidihi siday u dhaqmayaan inuu u dhaqmo oo ayaga koobi gareeyo doonayaa siyaalo badan markaas waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii qadiyad aad iyo aad u muhiim ah laba nin oo gaal ah ayaa murmeen waxay ku murmeen ninna waxaa la yidhaahdaa Watson ninna waxaa la oran jiray John Piaget yaa la oran jiray
واتسون wuxuu ku doodayaa qofkaani sida anigu aan rabo aan ka dhigi karaa anigu ilmagan yar sida anigu aan doonayo ayaan ka dhigi karaa I can nurture this child. I can nurture this child. aniga ayaa sanacaynaya nurture ku macnaheedu waxa weeye aniga ku samaynay modification ku samaynay John Piaget wuxuu leeyahay no qofka personality-kiisa waxa xukuma nature-kiisa iyo roots-kiisa iyo genetically meesha genetic-kiisa ayaa maamulo leeyahay oo asal u ah Watson wuxuu yiri I have proof kan haysta waxa weeye ilmagan hadaan dhex geeyo anigu bal hada hadalka aan idin leeyahay aad u dhageysta ilmahan gabar iyo wiil midkay doontaa haatee hadaan tuugo dhex geeyo tuugo professional sadaan dhex geeyo tuug mariyo madoobayaan ka soo saari karaa tuug yani professional aan ka soo saari karaa professional markaan leeyahay waa xariif weeye xariif mataqaana fa xariif baliyada xariif ma yaqaanin xariif waa yani qof oo maanta waa taqaanin luqadaas oo kale professional nin shaqadaas ku train garaysan oo rag ku ah haddaan dhex geeyo buu yiri niman dadka dila haddaan dhex geeyo oo qaatiliin oo dadka laaya haddaan dhex geeyo waxaan ka soo saarayaa buu murder number 1 ayaan ka soo saarayaa buu yiri haddaan dhex geeyo buu yiri music galiya qola ciyaarta musician aan ka dhigaa buu yiri haddaan dhex geeyo buu yiri loo kaliya qola taqaana looga kaliya qola barata waxaan ka dhigaa buu yiri lawyer asaga dhanba asagoon xataa iskuul na tagin aan loo markay sidoo meesha looga dhaqmaan looga haddaan dhaqaatiir dhex geeyana hobbigiisa iyo noloshiisa iyo behaviorkiisa waxaan ka dhigayaa dhakhtaraan ka dhigaya oo kale Soomaalidu waxay yiraahdeen meel walba sida u taala loola yaala meel isha laga leeyahay daartu wuxuu rabaa ilmihi meel nin dad ilaa haduu uu yahay inuu isku qabaha kulli saasay marka waxay keenaysaa wuxuu yiri ana professional anigu sida ay tahay ana sanacay karo nurture ana ku samay kara ilmaga yarka forget about wixii uu brainkiisa ku watay oo kale I can dictate I can dominate I can direct I can teach the way that I like it. Baaburka rootadiisan gelinayaa buu. Markaad fiirido marka maxaa la mid ah taas ilmagii yaraa si aan loo discriminate garaynin iyuu la joogaa iskuulka wuxuu la joogaa mid oo hip hop wata oo sambuq u socdo la joogaa oo saas loo saas isle yuu la socdaa oo sarwaal ka dhacayo weyn wata sarwaalku waa jinni ma dhaco kor looma qaadi karo hoosna uma dhaco wax la yaab la weey waxaad moodaa meeshaas uu istaakal ku iyo marna kor u jiidaa marna hoos u dhacaa kastuumaha loogu talagalay marada yani underwear-ka loogu talagalay qayb kamid inay muuqato okay hoosna uma dhacayo waa design sida ay u sameeyeen nimankii sameeyey black Americans ka keenay jeans-ka noocaas black Americans ka keenay school ma tagaan waxba kale ma tagaan waxaas ka shaqeeyaan language bay sameeyaan aan language-ka Ingiriiska ah oo saxda aanan ahayn ay isku afgartaan yeelay heestoodu waa ka duwan tahay codkoodu waa ka duwan yahay socodkoodu waa ka duwan yahay ayaga iskale style-kaas ayaga iskale style la yiraahdaa style-kaas ayaga iskale mar waa jeexan sarwaalka marna karmay ku dhajiyaan marna waa ballaariyaan say doonaan bay ka yeelaan waxaad arkay fashion waa fashion baa la yiraahdaa ayuu ku dhacay fashionka wiila waxa artay hooyadii sarwaal dabada ka jeexan oo boodiyaha ka jeexan oo jilbaha ka jeexan soo wato markaas wiilka sarwaalka waa ka jeexan sarwaal cusub loo soo gado kanoon lacag badan ka soo bixiyay wuu yiri sarwaalka adeeda waa jeexan yahay lacagtu jooga ma taqaanid adiga way la yaabtay
dadka u malaynaysa inay yihiin xubeerad dariiqa fadhideen inay u malaynaysa u malaynay sarwaaladan jeexanay wataan iyo waxaan ay sameynayaan waa loogu talagalay waa design way dadka waa weyn boorina ku noqon waxaan ka hadlay laakiin ilmaha waxay u tahay yaan rasmi weey markay way fahmayaan ayagu muxaadaradana ilmahan ugu soo talagalay dhalinyaradan ugu soo talagalay kowda ugu horeysa doon saa u dhaqminin marka ugu horeysaba haddaanu dharka ay sitaan ilmaha noocaas aanu qaadan waa isolated weey dadka kale waa ka go'an yahay marka ilmihi lama dhex geli karo give me 5 shanta faroos aa loogu dhufana markino waa language cusub soo maaha sidaas language way ha give me 5 waa language way wudu tagama awlay wudu tagama ma hadka taqaan ingiriis miya ma af kala ma taqaanid waa kuwa man ku soo wudu tagama hadaad fiirido dishnar ka raadido waliga kuma arkaysi laakiin ay waa fahmayaan will you take me a man take me a man marka take me a man language ay fahmayaan waa ingiriisku take a man laakiin wuxuu leeyahay would you take a maaha language-ka ingiriiska la yaqaan maaha mana ku arkay dictionary-ga waa dialogue ayaga ay leeyihiin isku afgartaan weey give me 5 wax kale ka dhigan tahay meel kale laga soo raray brothers aan nahay weey aniga adugu balaaga ku dhaqmi jiray markoodii hore language isku afgartaan bay ahayd laakiin annagu waa iska raacnaa dameer dhaan raacday amalan u raacnaa annagu dameer dhaan raacday naftooda aan fahamsanaynba waa dhaan ma taqaaniin dameerna ma taqaaniin waa run weey waxaa imaanaya markaa tinta xiirashadeeda fasalatiga xuno madaxa lagu xirto waxaas oo dhan imaanaya silsilada imaanaysa waxaa imaanaya bahalaha halkan lagu xirto qololba waxay leeyihiin style bay leeyihiin hell angeliska sidii u labistaan qoladan oo draagiska sidii qololba u labisataa waa is yaqaaniin waa groups waaye laakiin qofkaan aqoon ma yaqaan style-ka la iska qaadana marka qolana iska leh waxaa imaanaysa gabadha dharka xaggeeda markaan u soo noqonno way xijaabantii dhuf saasay leeyihin ma taqaanid hiyadaas meesha ka socoto meel fogay ka socotaa okay waxaa leeyahay haddayna martinta halkan ka soo jiidin midna halkan ka soo jiidinin asaysan casaysanin midaa jirto nature-ka gabdhuhu waa jecel inay isqurxiyaan waa jecel yihiin ilaah waa boorisaasoo kale waa jecel yihiin laakiin gabadhii waxay arkay gabar iyada kudda'a oo waxbana dheerayn oo make upkay haysato adduunka o dhan radayda tay waxay leedahay aniga maxaa iga siiya oo adiga maxaa kaa siiya la leeyahay adiga maxaa kaa siiya maxaa iga sii lahaan lahaa aniga waa muslim aniga oo muslim aan ahay maxaa iga sii iga ahaan lahaa iyadoo indhaha hoose muslim aniga maxaa sii iga ahaan lahaa oo timaha ma waxaa kaaga jira mataqaanaa bax miyaa kaaga jira baxka waa injirta iyo wixii la mid ah ma kaaga jirta madax maya igama jiraan aniga waa xijaab aan qaadana annaga طيب ما دقدان ميا شامبوغا iyo ma qaatan miya iyo conditionerska iyo ma qaatid miya adiga ma waa qaadan ma gada kartid miya ha waa ku fahmnay madaxa wasaq waay ha cidda kuma ogol miya oo cidda maxaa ka galay businesskaas ma gada kartid miya adiga conditioners ma lihid waxyaalaha dhan la xayeysiinayo gabdhaha xayeysiinayaan oo la gato oo creamka iyo waxa dhan adiga hey adiga ma wadatid miya kastuumadan oo lacagta badan lama wadatid miya haye kastuumadan aad aragteen oo la xayeysiinayo oo dukaamada laga xayeysiinayo waa ujeedda waxa loo xayeysiinaya kastuumadii marka lacagta badan ku jirto dukaamadii iibinayeen in la qariyo lama ogola sababta haddii la qariyo see lagu garanaya inaad maro wadato inaad kastuumadii qaaliga aad wadato see lagu kala garanaya waa loo fakero designa loo keenay caloosha loo baneeyay si ay kastuumadii uga muuqato sarwaalka gantiisa uga muuqato okay caloosha la baneeyay waxaa la yidhi what's wrong with that nothing wrong with that waa loo soo noqdo waxaa la yidhi oo kaalay markaad leedahay cabuur dheeraan qaadana lugaha ka qaqalloocanta miya
saasaa lagu leeyahay hooyadii ma oga in sidaa gabadhu la kulmayso ma oga waxa way style baadan lahayn lugaha ayaa ka qaqalloocanta waxbaa qarinaysa adiga horta waa ku fahmay waxbaa qarinaysa adiga gabdhaha beauty leeyihiin arrintoodana waa soo keeneen maanta ma arkaysaa waa loo jeedaa xabadkeeda waa loo jeedaa caloosheeda waa loo jeedaa bawdadeeda waa loo jeedaa meel kasta hey adiga waxbaa kaa qaldan waa kaa qaldan waa lagu shaaciraysanay already waa durantay soo maartay waa duranta waa lagu wadaa maalin kasta lagu wadaa soo ma nama raaci karta anaga baadhi aan socnaa nama raaci kartid stylekan aa wadato oo asaga dhanba maanta rafkaan annaga numa raaci kartid gabadhi waa rabtaa inay saaxiibadeed raacdo waa rabtaa laakiin dareeskan kuma raaci karto rafkan kuma raaci karto madaxan kuma raaci karto maxay keentay waxaa la yidhi aniga abeeyooyadii way dilayaan ma fiicna sidaan way dilayaana oo kaligaad guri gaar degi kartaa heel maxaa ka gala businesskaaga iyaga maxaa dhaca marka waxaa dhaca gabdhihii waa lala tusaa dukaamada la geynaa iskuullada marka laga baxo waa la soo wareejinaa kulli waxaan dhan la soo tusaa waxaa leeyahay ma kuu sheegaa haa hey boorsan ku siinaa adiga boorsadaa marnaba ha tusin hooyada adiga waxaa ku ridanaysaa matantaha qaaliga waxaa ku ridanaysaa sarwaalka jiiniska kuwa la rabo waxaa ku ridanaysaa make upta oo idil adiga soo qaada midkan markaa guriga ka baxdana asaga ku rid boorsadan kuwana ku dhac hey kuwaasay ku dhacday markaas kuma dhici karto markay iskuulka walaasheeda la dhigta ama walaalkeeda la dhigta ama qof yaqaano familiga la dhigta waxaa la samaynaa markii meel gaara la aadayo ayaa la leeyahay ku dhac kabineetka lookarka iskuulkana uga tag dharkan doqon baa tahay adiga marka la soo noqonayo waxaad tegaysaa masquulaha gelaysaa washroomka waa bedelanaysaa guriga markaa ku soo dhowdahay xijaabkaaga dhag isku sii adigoo awliya oo malaa'iga guriga gal marka gabadhii waxay wadataa laba daras ayay wadataa laba dhar miday dadkan ku raali gelido stylekan guud ku raali gelido la garto qofkay tahay la garto matra in la raaci karo aadan u malaynihinba gabadhaana muslim ahayd ama soomaaliba aadan u malaynaynin markaad duurka ku aragto guriga markay ku soo dhowdahana xijaabay jiq ku tahay awliya alla weeye waa la dhaafay arrinta ayada gabdhihii waxaa la yidhi saaxiib ma lihideed miya adiga may saaxiib ma lihi saaxiibka sheegaysaa maxay yaa u haysaa waaye adiga yaa u ilaalinaysaa waaye adiga saatan iska joogo adiga yaa u ilaalinaysaa maxaa ka gala hooyada iyo aabbaha ayagaba businessay haystaan adiga doqon yahay ayagaba businessay haystaan yani waa ku talagalna inaan hooyooyinka aabbayaalku joogin si dhallinyarada aan isugu warranno runtii laakiin mushkila waxaa la samaynaya marka waxaa leeyahay you can do boyfriend adiga boyfriend haa laakiin soomaaliga waa ku sheega soomaaliga ha u dhowaanin gaal boyfriend iyo samayso adiga gaal boyfriend iyo haa oo maxaa ka duwanta adiga gabdhaha kale maa ka duwanta adiga gaal boyfriend iyo samayso marnaba waa u sheegaysaa si saxda weligaa meel publicoo dadka ku arki karaan kulama istaagi karo ilaa iyo aad wakhti ka gaartid adiga baararkana waxaa la geynaa meel magaalaba waddankaaga aabbaha iyo hooyada weligood soo arki karinba aa la soo geynaa hadday magaaladan degan yihiin tuulooyinka lala aadaa baararka ku jira saaxiib waa socotay muddo hey say ku garanayaan hooyada ayaaba inaad saaxiib leedahay ilmahan waa la soo ridayaa bahalkan lagu siinaya daadseed kaniinkaana la qaataa waana laysi soo xiraa haddii la doono qaar badan oo intaa ka mid a waxay barteen markaasi mashaakilkii oo dhan kulli wixii oo dhan ayay barteen qaarkood waxaa leeyahay waxna ha cabbin saaxiibna ha samaysanin yani runtay ma tama samaaha carruurta runtay ma tama samaaha arrintaa runtay ma tama samaaha emersonkaa lagu wada hadlayaa haddi jeeraale emersonkaa lagu wada hadlayaa waa mashaakil aan u imaan doonay isug haddaba internetka emersonka waa u imaan doonaa si waa isla naqaana arrintaas okaadii
waxaa leeyahay adiga waxna ha cabbin waxna ha dhuuqin keliya fariisa miiska qofkii fariisanaya daraagiska inhalation loo siinaa waa lagu leeyahay daraagiska maanta haddaanu dhuuqinin bari waa qabana barkii inhalation u qaato waa neef ahaan u qaatay ilmagii waa heroin waa afyoon waa u imaan doona insha Allah taala marka dambe wuxuu doonayaa inuu dhadhamiyo ama hal mar qaac ka siiyo one is a time hal mara no problem ma adiga go ahead manala ciyaaraysa hadda marta inaad daalin hal xashiisha ku dhufo ama hal gaanja ku dhufo wiilash saas lagu yiraahdaa waa samaynayaan yaa baraya marka arrintaas marka yani gabadhii laba darees ay leedahay ay maraydo meel la meeshii ay rabto ay maraydo magaalooyinka laga yaabo inay aado kam ayaa imanay kam baa la aadayaa hey kamku waa the good time this is the good time kamka la aadaya bil baa lagu maqnaanaya iskuulkii baa tiriib u baxaya haddaad maqasho balaayada ugu weyniga badan oo halkaas ka timaada balaayada ugu weyniga badan tiriibka iyo kaamka iyo mashaakilkaas ka yimaadaan iskuulkii u soo noqo waxaan ka shaqeeyo facilitate garaynayo marka horeeto waxaan dhan ka saaraya kulli shyness yani xishoodka waxaa ka saaraya macallinka waxaa ka saaraya mataqaana assistant macallinka ayaa ka saaraya waxaa ka saaraya iskuulka oo dhan systemkiisa iskuulka waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaa involved ku ah xashiishkii gadidiisii iyo daraagiskii gadidoodii yaa gadaya arda kalaa gadaysa waxaa leeyahay dhaqaaluhu kuguma liito waa mushkiladda dhaqaaloon sheegayo waalidkiisa uu lacag kama leed soo matanta aad garabta ma aadan gada waayin hooyadaa iga yeeli maysa waxaa kaloo ku jirta dharkan aan doonayo hooyaday lacagta iyada haysa haddaan suuqa u soo kaxeeyana iima gadayso dharkan xun waa run hooyo ma gadi karto dhar xun oo jeexjeexan ma gadi karto marka waxaa leeyahay waa in lagaa xoraysiiyaa hooyada inay lacagta kugu gumaysato in lagaa xoraysiiyo waayo waxaa la siinaa markaa soo gad baa la leeyahay xashiishkan soo gad indhahaygaan saaray anigu beledyada ka mid a indhahaygaanan saaray gabdho xijaaban oo iibinaya maxay u iibinayaan ayagu ma cabbayaan xashiishka iyo herowiinka ma cabbayaan lacag inay ka helaan bay doonayaan bis commission in la siiyo waayo wayga keliya u samayn karaan waxa weeye 400-500 inay ka sameeyaan magaalo dukaan baan soo galay wiilal baa soo galay Soomaaliya way gadayaan markaas tintii ku baxday gabdhaha la jooga gabdhihii waxa joogan magaalo kale ka yimaadeen meesha kama dhaqi karaan oday jiisa oo gaal oo baashan gada baashan odaga jiiska waxa uu keenay niman labisana u keena ayaguna dad kale ka soo qaadeen ay ku qabteen dadkaas marka odagay u keensadaan hameen kasta nimanku ayagoo kaabka sitay yimaadeen hadda maaha arin oo bug maaha anigaana u kuur galay oo 7 hameen ku qarash gariyay arintaas iyada 7 hameenan ku bixiyay arintaas iyada inaan ogaado xaqiiqadeeda waxay sameeyeen ninkan waa iibinaya bahashan jiiskaahi nimankan u shaqeeya guriga asagoo uu degan yahay waa loogu talagalo waa qof jiiso hal qolaha ku filan laakiin guri 4 qolaha uu degan yahay 4 qol gurideeda waxa bixiya alaabtan uu gadaya laga bixiya markaas waxa jiifa gabdho oo dadkoodii iska soo carreen oo bahasha gadaayay iyo wiilal bahasha commissionka lagu soo la soo xariyay haday ka baxaana waa la dilaya kow aan looga siinaya ninbay dukaankiisa soo galeen marka lacag fara badan oo wiilka labada wiil ay sideen waxaan ku yiri ilmo yar oo wali teenager saatiine lacagtan badan xagee ka keenteen waadan lacagtan waa lacagtan u dhimanayno ayada marka mid kamid ah ayaa wuxuu imaan jiray dugsi quraan mar dhigi jiray imaan jiray marka wuxuu yiri lacagtan aad u jeedo macallin waa u dhimanaynaa buu yiri anug markuu arkay waa ooyay tiiris baa ka soo daatay ilmaa ka soo daatay tintii isku soo soohan oo xanja isku noqotay iyo lacagtan badan uu sito iyo sida uu ku nool yahay situationka wiilkii markuu ooyay ayaan dukaankiyan sii dhax raaco waa la sheekaysto ii waran iriyo maad uu ii waramo wuxuu yiri markii hore iskuulka aan dhiganaynay tartiiba waxna la kugu dhiibay
boqol shilin aan ka heli jirnay markii dambeeto way korortay lacagtii 500 weegii way korortay lacagtii weegii $1,000 ku dhawaad ayaana la gaarsiiyey iskuulkii dhan waa ka harnay markii aan damacnay inaan ka baxnana hey bana ku yiri lafahayna haloognina waa dhimanaysaan markaasaan ma wiil labadiina wiil kaliya tiin ma yidheen gabdho intaas aan la jooga oo magaalo Hiblaayo la yiraahdo magaalo kamid ah wadanka ka yimaadeen oo cidoodii ka soo carareen sidoo kale to xabsigaas ku jiro oo aan ka bixi karin ayagana marka lacagtaas aan u dhimanayna yaad ka baqaydaan aan ku eri haddaan dacweeyoon hadda booliiska u sheego maxaad ka qabtaan baan ku eri waxay yiraahdeen haddaad dacweyso adiga naftigaaga lagu xiraya haddaad dacweyso gaalka meesha nagu haysta nagu ceshanaya adiga naftigaaga lagu xiraya waayo maxaa dhacay baan ku eri imaaw bay dhaheen marka haddaad rabto inaad ogaato galab kasta hamiinkii markay 8 tahay imaaw hayan eri gurigii bay ii tilmaameen guriga dukaanka kama dheeray wax ka gadanayaan meel baan ugu gambaday waxa imaanaya iyagoo baaskiilo wata imaanaya nimankay sheegayaan baabuurtoodii iyagoo wata caadiga imaanayaan xaggay dhiganayaan gurigay galayaan saacad iyo badh markay ku jiraan ay xisaabtooda soo dhamaystaan ay soo baxayaan yaad uga dacwoonaysa markaa ninna ilmahan marka waxay ku dhaceen sheelay ku dhaceen yani waxay ku dhaceen sheela moorta camal ayay ku dhaceen meel aan uga bixi karna ma lahan buu meel alla meeshan tagna waa la damirayaa buu yiri ilmihii marka saasa lacagtii markii hore lagu soo dabay oo loo soo daday sandareerada ahayd sidaas ay keentay marka waxa la gaarsiinayaa lacagtaasi halkaas ka timaada afyoonka iyo xashiishka iyo maragwaanada iyo gaanjada waxaas oo halkaas ka yimaadaan ilmihii waxa naftii ku ismaawilanay in khamrana la siiyo xataa marka kadibna wixii la doono nala ku sameeyo hadii la doono waxa weeye marka mushkiladaasi dhaqaale oo lacagta ilmaha inaan loo diidin waalidku waa inaan ilmaha lacagta u diidin markay iskuulka wax ka gadanayaan waa inaan lacagta u diidinin xataa hadaa tirado waxa iskuulka laga gadaya oo cuntahan ku siin hadaa tirado mar raba ilmaga yarka ah waayo wuxuu la xisaabtamayaa ilmigan asaga oo biirkiisa oo ku age-ka lacagta oo waxa ku gadanayo raba inuu gato hadaa siido waxa lagu gaday meesha dad guriga ka soo siido mar raba waa tuuraya psychologically laana wuxuu rabaa inuu tusiyo inuu lacag gadan karo waxaan inuu gadan karo asagana barantisku ma dareensanad arrinta ayada ilmaha way canantaan markay wax weydiistaan markaasay u diidaan diidmadaas meel kale ka dhici doonta marka waalidku arrinta ayada ma dareensana waa arrin kale oo dhaqaalaha la xiriirta weeye waa arrin kale oo la xiriirta dhaqaadashada iyo bedelka la xiriirta weeye waa arrin la xiriirta society-gan miyaad ka noqon kartaa falooci gaar ka noqon kartaa ama gaar oo uga bixi kartaa waa inaad ku dayataa waxa timid marka parentski waa hurdayaan ama maba garanayaan luqadan ilmagii yara waa fadhiyad wuxuu garaacayaa maxay aheeto MSN-ka internetka ku jira MSN-ka garaacaya dag 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 waa u kaadinaya ilaa mid kale warkiisa aqrinaya markuu u kaadiyo cabaar waa garaacaya dana dag 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 waa socda maanta oo dhan waxa uu teeb garaynayo يعني homework-giisii kama soo shaqeynoo shaqadii laga rabay iskuulka kama shaqeynin yani waxa uu ilmuhu qabanaya lama oga hooyadii waxa laga yaabaa inay tiri seexdo qolkiina seexda cabaar markay raftaan mid soo degayaan way la socdaan ayagoo qoslayaad arkaysa mararka qaar kood MSN-kay ku jiraan MSN-ku muxuu leeyahay computer-ku muxuu leeyahay you don't know habartuna ma taqaano aabuhuna ma yaqaano qofka weyna lama socdo dad baa meel u fadhiya ilmo kale to ama ka waaweyn ama ku teenager ayaa meel la fadhiya wax allaya waxay doonaan xataa pornography waxa la yiraahdo dhamay tusinaya u soo sawirayaan pornography-ga naftigeeda hadii la fahmayo yani awradii baa loo sawiraya ilmaha naftigooda picture buu leeyahay computer-ka waa loo soo sawiraya wiil iyo gabar midkay doontaba ahaatee wax ka qarsoon ma jirto completely hooyana ma oga aabana ma oga ilmagaas waaga ugu baryaya yani computer-ka korkiisa waaga ugu baryaya subaxii meesha iskuulka ka aadi lahaa asagoo indhahaas ku haysta u dhacaya iskuulkii halkaas ku baabaaya darajaadkooda halkaas ku baabaayaan hakii xataa mukhadaraadka ka fakaday drop out buu noqonaya waayo iskuul ma xaqeejin karo gaaladii baa ka qaylinaysa gaalada ahaa ayaa ka qaylinaysa feature la keeno waxa parental control system ayaa la keeno waalidku ay ku kontrolayaan carruurtoodii wixii oo dhan way ka furayaan ayaga ka badiyo ciyaalku ayaga expert ku ah kombiyuutarada waxa looga wada hadlayo kombiyuutarada ama MSN-ka looga wada hadlayo
hooyana ma fahmi karto maskaxdeeda ku soo dhici maayaan aabbana ma fahmi karo maskaxdiisa ku soo dhici maydo gabdhihi ayagoo teenager oo 14 aan gaarin expert ku yihiin wax allaala waxa sex la yiraahdo dhan expert ku yihiin computer through computer wiilasha yaryarka ahaa wax allaala waxa jinsi la yiraahdo ama sex la yiraahdo expert ku yihiin with a computer waxa laga yaabaa marka maalinka dambe inay gabadhi tiraahdo yani mushkiladda kale oo jirta waxa weeye waxa u dhaxeeya hooyada iyo gabadha gaab baa u dhaxeeya gaab weyn u dhaxeeya gaabku wuxuu ugu dhaxaynayaa dhowr arrimood awalan language han isma fahmayaan shucuurkan ka dhaxeeya gabadhan oo iskuulka ay ku leedahay hooyadan lama xiriirto completely lama xiriirto gabadhan hooyada iskuul ma tagto dharka ka socda lama socoto boyfriend iyo girlfriend lama socoto shaarican la isku dhagan yahay lama socoto yani waxaas oo mid kale ma socoto adooguna waaba dhoorro weeyaan xabad uu ka ogyahay mala waxaan oo kale dhoorra la dhigi jiray markii hore markii Soomaaliya la joogi jiray laakiin caruurtu say expert ugu yihiin wax ugu ilaa malaha okay mushkilad kala timid markaa taas waxaanu ka soo hadalnay dharka iyo language luqada iyo environmentiga naftigiisa iyo waxaan ka soo hadalnay sagaska marka mushkiladiisa oo kale taala waxa weeye whether you like it or not ilmahani waxay raadinayaan way helayaan whether you like it or not ama jaclaw ama ha jaclaanin way helayaan waa la iskala soo baxay video la soo qaato lagu fiirsado guriga waa la iskala soo baxay wax walbaaba iminka waxay ku jiraan internetka iyo balaayada ku jiraan xalligii marka waa maxay hooyadii gabadhii intay saaxiib la noqoto friend la noqoto sheekadeedii oo dhan ma guri karto ma ka dhageysanayso gabadhuna intay u tagto hooyadii ma oranayso waxaan oo dhan baan dareensana ma oranayso haddii hooyadu wax ka celido gabadhii ka yeeli maydo gabadhuna sirteeda u sheegi maydo hooyada marka ugu horeysa gaab baa u dhaxeeya gaab oo cultural ah u dhaxaysa ma dareensanin annagu inaan meesha keenay ilmahan ma dareensanin mushkiladan ayagu la kulmayaan inaanan annagu la kulmaynin ma dareensanin annagoo da'wa weyn oo fakarayna inaan soo galnay ayaguna aanay soo galin ma dareensaninin waxaa u macallina marka biir barashar wax la yidhahdo ayaa haysta ilmaha ku da'da ayaa u macallina ilmaha ku da'da ayaa u macallina gabdhuhu waa kuwaas see loo xallina marka mushkiladaas ma aha xalli gabadhii waan qaxinayaa oo waddankii aan geynaya ma xalli kartid sababtoo internet baa yaalla meel kasta maan today internet baa yaalla guri kastoo Soomaaliya iyo meel kastoo geedo haddaad tuulo geedo hataa reer baadiya maanta waxa yaalla cellular telephone baa yaalla waxaana kaloo yaalla internet baa yaalla waa soo wacayaan waxay leeyihiin ama internet bay soo dirayaan oo emailka haysateen oo dhibkaas ay ugu haysta meel hablaayo oo sidaas waa in wax laga qabtaa waa laga qabanaya telefoonka soo wacayaan waxay leeyihiin halkaasna lagu fogeeyay ana laga soo doono waa laga soo doonaya waad aragteen kaysas fara badan waxa oo maanta la qarinaya ma waxa la damacaya inta gabadhii la wada in la yiraahdo wiil baa lagu daraya laakiin mushkilada wiilka haysata xataa ma fiirinayo malahan wiilkan gabarha lagu daro waa kan oo naag buu u baahan yahay gabadhii la oran maayo maanta inta waad soo kortay maxaa doonaysaa la oran maayo xataa oo lala sheekaysan maayo hamiinadan haddaan soo jeedna gabdhuhu way og yihiin waxaan ka hadlayo markaan kaligan isku nahana wiilashii gabdhuhu markaan kaligan isku ama gabdhaha kaligoodan isku nahana xaqiiqdii factiska si sax ay u sheegayaan waan runtood weey waxa ugu wanaagsan waxa weey inaad tiraahdid ha qarsanin hana la dhuumanin haddaad nin jeceshahay haddeer keenso daadoo doona ha jire waa ka hadal waa solutionka weeyaan the only solution aad haysato waa kaa weey maxaad ugu qasbinaysaa inay kaa qarsato kaa la dhumato yani si choice-ka saxdaa si dheh haddaad nin la hadlaysid ama wiil la hadlaysid wiilka aad doonayso waa lagu siinaa kan mushkilad kale oo parentsku ay leeyihiin ilmahanuna aanay ogeyn ayaa jiro kale parentsku waxay yihiin Soomaali qabaa'ilkeedii kale yaqaaniin ilmaha halkan ku dhalo Soomaali qabaa'ilkood ma kale yaqaaniin mid weyn iyo mid yar iyo mid qurxoon iyo mid kale midna ma kale yaqaaniin waxa laga yaabaa marka in la yiraahdo waa kuma waa ina ayo wiilka sheegaysaa in la yiraahdo markay la timaado wiil ma saasay tiri ha hel marka hore ma ka gardarnaa saasay leedahay iyaduna
yani meesha rabta ka dhaca barta adaan ka gardarna markii hore waxa weeyaan sidii ay ku socotay ku soconaysaa wax loo sheegayna ma jirto annaga aragnay oo indheena ku aragnay yani waxa weeye waxaad arkaysaa dhaqanka Soomaalida dibkiisaan rabaa inaan miisaal baan rabaa inaan idin sheego gabdhaha yani dhowr hoos la dhashay yaa reer joogay aabbaha waa nin mataqaana shaqooyinka u barto oo adduunka ka soo shaqayn jiro caynkaan ma raba inaan taariiftooda bixiyo wiil iyo gabar iskuulka isla dhiganay wiil la dhiganaysa cid uu keento waxay wiilkan hal ay siiyo oo miyuu shaqaystaa buu yiri maya oo welfare bartana qaataan ha get out baxabu ku yiri way dab daran tahay markuu shaqaystaa yimaado tay shaqada masaa gacanta ku hay bal shaqada masaa gacanta ku hay hadduu Tim Horton ka shaqeeyo waxa leeyahay Tim Horton ma lacag ba wax yar buu ka shaqeeyaa beeshaha laga cabadi hadduu ka shaqeeyo yaa siinay qofkan soo muslim ma aha hawla badan oo mushkilada keenaysa ayaan rabaa inaan u imaado insha Allah oo daraagiska xataa la xiriirta insha Allah markii 2 sano markii la isu sugayay 24 sano la sheekaysanayo yaa wiilkii ii yimid wuxuu yiniyo gabadhan waa isjecelnahay waxaan ka baqaynaa inaanu de marka waxaanu gaarnay heer aanan kala maada karinin maxaa talaa maxaa jaashan kuriyo hooyada ma la hadla aabaas ma la hadla ma yabu okay wadaad kale u tag baan ku yiriyo wadaad kale u tageen waa isku mehriyo 2 sano 3 sano ay wada nool yihiin shaqa laga sugaa wali 2 sano 3 sano xaas bay u tahay gurigiisa ku hoydaa hooyadii ayadna gurigeeda u hooyata hamiinka markii la kala dandamaysto maxaa laga la sugayaa baa la yiri ma anaga shaqada noo gacanta ku hayna muxuu noo xayirayaa asagu inta sida ku nool nooca sida ku nool boqolaal bay ka badan yihiin boqolaal iyo ka badan yihiin marka intii la dhihi lahaa boqolaal oo ka duwan oo sida iyo kuwaas waa fiicnaa ismehersadeen kuwan ismehersan baa inta ku wada nool saasana looga warqabin gabadh ciidu joogdayna u tahay ilaahay ka baqo marka waxa weeyaan yani waxyaalahan lagu xidhayo la leeyahay cidaada iyo lacagta iyo waxaan la booday la dhacay inta ka tagtaan gabadhu ninkay la timaado dad muslim yahay ku dara taas midaas weey bi'ada waxa imaan doonto runtii dibka ay leedahay yaan rabaa inaan kala hadlee bi'adu taasiirka ay leedahay rabaa inaan idin sheego misaal baan idin tusinayaa Soomaaliya ka dhacay wiil yar oo Talyaaniga wiilka Talyaaniga aabayo hooya kaliya ilma ka qaba diblomaasina weey aabihi waa Muqdisho weey waa xaafada Boondheere weey ma sheeka buga aniga wiilkii yani hortayda uga sheekay arintii wiilkii waxa dhacday markii odagu shaqada ka soo rawaxo hooyaduna ay ka soo rawaxdo waa laba qof oo de family ah wiilkan banaanka u bixiyaan cidana ay iyo wiilkaaba u joogaba bas wiilkii xaga waadaya marka ilmo Soomaaliya oo garangar ku ciyaaraya meesha jidka ah ayuu la ciyaaraa maalin walba ilaa ilmo kale ma hayste ilmo garangarta la ciyaara garangarta la eriyayo kale ilmo ku daaway xoogaa kuwa kale to waaweyn ku soo biiray way la ciyaareen anugii intii aabi iyo hooyadii ay hurdaayeen anugii waxay geeyeen dugsi quraan ay geeyeen ilmahan raacaya dugsi quraan la soo dhiganaya ambuulada la cunayo wax ka soo cunaya markii ilmo laga ducaynayo waxa dhan markaas ay dhan kitaabka ha taabanin kala gaalata kitaabka taabanin gaalata quraanka ha taabanaya cunug yarka biswa iska yar oo iska aamusay uma sheegay waxaas ay ku dhigayaan hada ilmuhu ku dhigayaan uma sheegay abihi hooyadii ogow adigana saas oo kale tan loo dhaqmaya ogaada maalinka dambe iyagoo ciyaaraya yeedhana hana taaban haranaati hana taaban haran ma taqaanin ma yaqaanin feere haran waxa Soomaaligu yiraahdaan eyga nijaaso weey haduu ku taabto marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madoona ciyalkee waxay ku yiraahdeen haran baati hana taabanin soo wadta haran muxuu Talyaani ku yiri doob haran marka la yiri haran waxa weeye eyga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadana ha nagu taaban najaasadaada adiguna anugii ilmahan raba inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayeen la dhigdhigo raba waxaan hana taabanin haranaatee harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa la ciyaarayso
guriga inta ku soo noomaalta wuxuu yiri eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odagii aabay waxa leeyahay eyga maxaa u dilaysaa waa fiican yahay waa faratelahaaga waaye faratel way brotherka yira Soma waa faratelahaaga maxaa u dilaysaa wuxuu yahay haran weeyo faratel ma noonay faratel loo yiri waa way turabba haran waayo yiri waa uga dhigeen eyga turabba haran waayo dheen turabba waayo aad buu haran u yahay wasaq u yahay waa yaabeen eygii ama guriga ha laga saaro ama anaga ha laga saaro nag waxay ku qasabtay ninkii inuu eygii markii dambe cid kale oo Talyaani iska siiyo maxay wiilkii yarka ilma ka qabay wiilkiina wuxuu yiri eyga ama aniga ama eyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa seexdaan maalin kasta iyagu inay banaanka niman u joogaan yaryar ku deeyay ma oga maalinkii dambe yiraahdeen radiga buuriya qabatay yeedad uf buuriya maxaa la yiraahdaa yiri waxay dhaheen buuriya waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa adiga waa naga duwanta wasaqaata adiga ilmihi waa ilma yaryare sarwaalka yar inta iska wada fureen inta siiyeen in la gudan yihiin asagana aan gudnayn waa kaas alimarta ina qashin tahay waa arinta hadda aan sheegayo kala to gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kala soo markay sida hadaba waxay qarinaysaa saan ogaw arinta hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagu la dhaqmayo wuxuu yiri waa inaan ka takhaluso arintaas iyada wuxuu tagay canugii ilmihii waxay u geeyeen istaalkii Martini la dhigi jiray geeyeen ilmihii say canugii u wadeen waa in la soo gudaa anigana waa yaabeen abiyo hooyadii kaxbay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa la soo guday halka canugu ay qabaan Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaa la yiri doofaarka cuntaa oo doofaarka maxaa dhibay doofaarka sida eygo kale tuu yahay turabbo najis yahay asagana gurigii ku noqday wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofaar Soomaali lagu maqalay gasac lagu leeyimid meeshii asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo Talyaaniga ahaa oo doofaarka ay boorka kula yimaadeen oo dhan kulli intuu arusho qubay wiilkiirka khamrigiina intuu qaatay oo dhaladii dhulka la dhacay markaasuu labadaba najis waay waxay dheen ilmahan waxa wax bar marka waynan ogaanaa si kasta inta yeelan u sheegi diiday saasoo kale taa marka doofaarka looga tufay anugaas gaalka ah ilmahanagana doofaarka leeyahay maxaa dhacay waa cunta cun maxaa ka cun is good maniela maniela Talyaani Soomaa maniela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandwichkan manielada banini biye banini banini maniela marka cuna la leeyahay ilmaha anaga saasa loogu daldala anagana sandwichka iyo maanta waxay ku jiraan oo kale tii kulligood loogu daldala because hadoo yira mar rabo maanta dawdiido boqol ku kacaydo waxa lagu leeyahay hel naga tagna lama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority kale yihiin ilmihii yarka ahaa waa fahamta Soomaa hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarka Talyaaniga aan aabiyo hooyadii u ogeyn aanan ilmahanaga u ogeyn waxa la cunsiinay sida loola hadlay sida loola dhaqmayaa aanan ogeyn okay canugii waa la soo guday doofaarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyey maalinkii dambe to ilmihii markay dugsigii tagaan waxa la quraanka taabanin maxaa dhacay gaalata la yiri maxaa noqonaya muslim noqolayno muslim soo noqda waay la ilaha illa allah muhammad rasuulullah de canugi la ilaha illa muhammad rasuulullah yiri yani ilmihii macallin u noqdeen canugii sheekh bay u noqdeen dugsigaana uu tagayo quraanka waqrin wuxuu yiri ayadana aabbayoyaday ogeyn ma quraanka waxaan soo dhigtay ilaa juz amman soo bartay yiri soo xafiday yiri aabbayoyadayna xabad kama ogeyn buu yiri maalinkii dambe wixii uu yiri hey maqla maraba waxaan aad karsanaysan adinka cuntadayda waa ii gaar way aniga muslimaan aanu yarka adoogay hooyadii waa qarraacmi gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen France ayay soo degeen aniga meesha ugu sheekeynay wiilku waa France way markay soo degeen
wiilkii waxay islahaayeen waa idiin soo noqon doonaa ma soo noqona masaajidkiisuu ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii Soomaalida cid aan ahayn raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqaynayay gabar ka mid ah Soomaaliya af Soomaaliga wuxuu yaqaan sidaan anagu uga hadlayno kale habartii aabuuna Talyaaniga ee Soomaaliga ma yaqaaniin markii iskala weynayeen markii hore orgolyo waxa weeye asaga af Soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihii u baahlayeen ugu hadlay wuxuu yiri gabadhan Soomaalidan guursanaa gabadhu waa isku soo dhaceen bas waa guursadeen habartii adoogu sheegay wuxuu yiri ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo Soomaali aan guursaday waxa la daayirad naga tahay okay buu yiri bane adinka idinta Allah buu yiri waxa dartan ugu xukuma laakiin aniga gabadhan guursanay iyada muslima ma rabo ilmahayga inay meel muslimiin salka dhigaan ma doonayo meel muslim ilmahayga salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabii hooyada waxay gabadhan Soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay ilmaha aan aragno no buu yiri naagta inaad la hadashaan oo raali ka dhigtaan moogiye ilmaha arki maydaan marka gaalad ilmaha way gaalaysiinaysaa aniga arkay indhaygan ku arkay waxaad ogaataan marka canuga procedure-ka la soo marsiiyay meesha uu ku dambeeyay in la ku dambaysiinay gabar iyo wiilba in sidaas oo kale la ku dambaysiinay mushkilad kale oo ay leedahay ayaa jirta marriage-ku ay leeyahay waxa ka mid ah gabdhaha soo islaamaya Swedish halkaan oo kale waa la guursanaya ama marka hore inta wiilka jeclaadaan bay soo islaamayaan ileen waa soo islaam markay jeclaadaan oo kaleeto way tabiicada haweeneyda waa sida weey daaima ninka ay la nooshay in raali gelido sida islaamku uu ogolaaday inay naagtu guursato nin muslim naagta gaasha nin muslim inuu guursado ay guursan karto laakiin gabadha muslimada aan gaalka loogu ogolaan sidaas ka mid ah tabiicadeeda waxa ka mid ah inay ninka raali gelido daa'iman dabcan gabar muslim markay gaal guursato waxa la wuxuu dalbaday inay ka yeesho ayaa laazim ku noqonaysa dharkana uu ka tuuro islaamkana ka tuuro marka dambe laakiin tan aan muslimka ahayn markii la guursado waa soo islaami ayaa rajalaga oo markay wadanka muslimiinta ay joogaan minority ay yihiin ogow halkan ma aha sanadkii horan kaga hadlay mixed marriage dhibaatada uu leeyahay qaar badan marka islaamka ka noqdo markay ninkii islaamkii isqabteen muslimkii ninkii islaamkii way ka noqdeen wadankan mid kale to midku doona ha ahaado waxay bilaabeen inay maxkamadda tagaan ay yiraahdaan ilmahan si aan ninkii muslimka ah iiga qaadanin magaciisaba ka tirtira muslimnimadana ka qaada symbol waa laga yeelaya barkay gabadhu markii hore teeba qaldantay haday soo noqoto ilmi wayna iyadu lahaato ninkii laga saaro magaciya aabiyo jooga laguma samay karo ninka wadankaas ay u dhalato native-ka laguma samay karo sida laakiin maadaama ilmahan nin muslim oo u dhalay saasa lagu samaynaya marka ugu dambaysa way badantahay kaysasaasku magaca in laga tiro ninka magacana laga bedelo completely ay qaadato marka ilmihi ayadu ninkan la yiraahdo hawada la roobay in la yiraahdo ma dheera arinta ayada inta nin ka shalayday oo markay islaamkii ay isdireen gabadhii asagii ay islaamnimadii ku joogaynin ila gabadhan muslimka haday ninka iyadu isqabtaan islaamkii kama tagay laakiin gaashu waa ka tagay gabadha gaalnimo soo martay way ka tagay ninkan markii way maslaxada isu keentay markii horeba saaxiibkeedii hore u noqay haday doonto ayadoo asaga ku xoran wali wixii oo dhan kulli tutti waa finish weeyaan waxa marka imaanaya oo dhibaatadaas ka imaanaya waxaad ogaataan yani wiilashayada hadday guursadaan gabdho oo aan muslim ahayn ilmihiina ayagu lahayn ogaada marka ugu dambaysa gabdhaha anagu hadday guursadaan niman aanan wadanka u dhalanina aynan muslim ahaynna inaan ilmahaas lahayn waa inay ogaataa hadhow iyadoo indhaha biyo ka sii daynaysa arki doontaan gabadhii guursata nin Jamaican ama nin kaleeto ama nin aan muslim ahayn guursata iyadoo indhaha biyo ka sii daynaysa arki doontaan laba midkood inay muslimnimo ku ooydo 24 saac iyadoo muslimadeeda ku soo noqotay iyo inay diinta islaamka ka baxdo at the same time ilmaheedii aanay access u yeelanin ayaa dhici doonta waayo isaga ka xoog badan markastaba ninka wadankan joogaay kaaga xoog badan markastoo xuquuqda haweenka hal si la yiraahdo ninka wadanka u dhashay asaga oo native-ka asaga ka baawar badan gabadha aan u dhalanin gabadha wadanka u dhalatana iyada ka baawar badan ninka aan wadanka u dhalanin labadaas waa inaad ogaataan mahma ay warqada kasta wataan waa inaad ogaataan arinta ayada waxyaalaha marka oo dhibaatada oo kale too jirta waxa laga yaabaa inay nin kale iska raacdo oo jaclaato oo isqabtaan oo aw ninka xataa yiraahdo xataa asagoo muslim sheeganaya kuma siinaya ilmaha waa laga xoog badan yahay waayo marka uu u tagayo gaalada u tagayo ma oranayo muslimaan ahay ama danna kama lahan qofkan in hawada lagu diro buu doonaya
gabadha muslimadda ahi marka waa inay iska ilaalisaa jacaylka koowaad haddii loo diido wiilka Soomaaliga ah la timid nin kale to gaal ah la keenay imaan doontaa dhibaataduna taa inta waa ka weynaan doontaa inta waa mid weeyaan labo arrimaha kale oo aad iyo aad ka runtii u ah ha u malaynin intaas inaan lala soconin oo dhibaatada ayada aan lala soconin ha u malaynin mukhadaraadka dhici doona oo gabdhaha ama bara doonaan ama wiilashu ay baranayaan dhibaatooyin badan ayaa ka iman intaanan diinta waxay ka qabta sheeginin dhallinyaradaanan rabaa inaan la hadlo runtii waalidiinta lama hadlayo ka soo qaad waxaad rabtaa waddankan inaad wax ku barato you want to learn something in this country and to be professional tomorrow professional waxaad rabtaa inaad lawyer noqotid waxaad rabtaa inaad dhakhtar noqoto waxaad rabtaa inaad noqoto maanta ma arkaysaa chemist inaad noqoto waxaad ogaataa marka arrintan oo iskuulka lagula imaanaya mukhadaraadka ama drugska lagu barayo dhowr hadafaa laga leeyahay hadafka koowaad inaad baaba'adoodan waxbarashada hore ugu kicin waa loogu talagalay one way ogowtaa labo oo lagu gaarsiiyey meel aadan ka noqon karinin oo addicted ku noqotay addicted waa maxay waxaanad dhaafi karin oo sida biyaha iyo cuntada aad ugu baahan tahay oo kale one mar haddaad addicted noqotana oo drug addicted aad noqotana wax aad samayn karto oo achievement ah ma jiro completely ogowtaa you get lost completely labo drugsku waxyaalaha ay keenayaan waxaa ugu badan oo meesha ku imaanaya run ahaantii inaad hoog u gasho ama hoggaan u gasho dadaadan doonayn inaad xariga u gasho saddex inaad criminal noqotid criminal record wiilka waa la barayaa drugska inuu barto xashiishka inuu barto heroinka inuu barto waa la barayaa kii baray naftiisa soo xiraya markuu soo xiro magaciisa ayaa loo gelinayaa inuu waxaasi ku dhaqmo haddaad noqoto professional marka ugu dambaysa xataa markii ilma aad tahay haddii lagaa soo qarqariyo inuu disappearance completely samaynaya ha u qaadanin weligaa disappearance ma samaynayo recordkaaga waayo waxa lagugu talagelayaa waa saas weeye awalan iskuulka inaad dhammaydo marka horeeto waa difficult inaad iskuulka dhammaydahay waa so difficult weeyaan waayo waxaanad ka daba wareegaysaa labo haddaad dhammayso waa so difficult inaad markis fiican oo jaamacad ku gashay inaad heshaana waa difficult marka obstacle 1 waxa weeye inaadan iskuulkaba ka bixin obstacle 2 waxa weeye inaadan good marks inaadan helin doon jaamacadda u gudbinin 3 waxa weeyaan inaad noqoto dambiile aan weligii shaqo helinin weligaan shaqo helinin annagaa naqaan la yidhaahdo drugsku cabbi jiray alcoholic buu ahaa xashiishku cabbi jiray kan buu ahaa intaasoo dembiyow galay intaasoo faraa laga haayaa intaasoo masawir baa laga hayaa hey kan maya waxaa markaas ku soo noqotay getadu waxa weeye dadka aan meelna u bixi karinoo saarkalka ku jiro xalaqada ku jira wey waxaa marka leeyahay dhallinyarada waan is ognaha waa isla soconnaa gabdhaha yaryar waxaan kula talinayaa oo teenagerska ah walaal ha qarinin ninka aad doonaysa inaad guursata ha qarinin ha raadinin jinsiga ha ku raadin ama sagaska ha ku raadinin dariiqa loocan ha ku raadin oo boyfriend iyo girlfriend ha ku raadinin liasbaab kathiira jiddan awalan statuskaagu wuxuu ku dhisan yahay inta aad nadiifka tahay uu dhisan yahay labo ilma qariban markaad dhasho mujtamaca weligaa gaal iyo muslim midna acceptance kuma siinayaan saddex ilaahay waad seegtay oo markaasi ilaahay waad dariiqiisa waad seegtay oo xaqi waad seegtay oo diintii waad seegtay afar ma gaari kartid adduunyada meeshii aad doonaysa inaad gaarto ma gaari kartid waxaan marka leeyahay horta bal marka ugu horraysa yani mar haddii aad jinsi dareento ha qarinin ee confrontation ku sameeya xataa parentiskaaga ka hor imow waxaad tidhahdaa waan guursanaya parentiska waxaan leeyahay ilmahan ma fahmaysaan laakiin markay idinla yimaadaan ama aad dareentaan inay guur doonayaan ku dhiirigeliyo guurka uu ogolaada ku dhiirigeliya cararka kaleetiyo waan la qaxayaa iyo xaggaan la tegaya waxba ma shaqaynaysa badan
waxay ahayd intaanan la imaanin halkan ayay ahayd mar haddii la yimid ka dambow waa inaad maanta ma arkaysaa aad si fiican wejiga loogu dhigo wey waxyaalaha aad iyo aad u dhibka badan oo aan la celi karinin waxaa ka mid ah waxaan isku dayaynaa annagu inaan nidhaa ilmaha waan kontaroolaynaa waan ilaalinaynaa kanaan samaynaynaa ilmuhu ayagaa 4 goor naga horreeya runtii oo waxaan rabno inaan ka kontaroolno ayagaa yaqaan sida loo manage karayo horta waa inaad taa ogaatid weeye waxaa kaleeto dhaqanka ilmaha dhibaato weyn ku ah khilaafka aabbaha iyo hooyada ka dhexeeya khilaafkaas aabbaha iyo hooyada ka dhexeeya ilmuhu waa arkayaan sidii ay u arkayeen gabadhii wiilka jidka isu haysta siday u arkayeen maanta ma arkaysa dariiqa waxa ka socda aabbaha iyo hooyada siday u dhaqmayaanna ta'siir weyn bay ku leedahay dagaalkay dagaalayaan isku qaylinayaan maanta ma arkaysa ciriiriga ka jira furiinka ka jira meeshii yani canugaani gurigiioo dagaal uu ka socdo iskuulkii waxba ma xaqiiji karo canugaani gurigiioo dagaal uu ka socdo oo goob dagaal ah oo aabbihii hooyadii isdagaalayaan ilmahani iskuulka ma xaqiiji karaan waxaad kaloo ogaataa inta uu aamusan yahay ilmagaani waxbuu dhuuqayaa ogow colaad adoogu qaadaya maanta ma arkaysaa wuxuu qaadayaa mataqaanaa colaad relatifku qaadaya dhibaatooyin fara badan buu samaynaya uu farta u dhexda ka qaniinaya wuxuu leeyahay yaa markuu gaarsiiyey 15 sano ama qaanuunka waddanka yaa ku gaarsiiyey waqtigaad xoroobi lahayd waxaa ka mid a waxyaalaha guryaha ka socday ka mid tahay maarintiskanagu iyo soomaalidannadu ma dareensanini sidii layskugu qayli jiray soomaaliya oo kale layskugu qaylinaya aabbihi hooyadii musiiba kubraa wey waa musiiba kubraa runtii waxaan marka aad iyo aad u jeclaan lahaa in la tixgeliyo midda kale waxaad ogaataan carruurtaanu psychologically waa kaa duwan say u fakerayaan say wax u fahmayaan say u dhaqmayaan labada waalidba waa ka duwan yihiin ogaada horta bal marka ugu horraysa yani haddaadan haysan common ground haddaadan haysan ardiya ama dhul haddaadan u haysan ilmahan kugu fahmaan maya marka aan wiilasha weydiiye ma rabtaa kulligiin inaad criminal noqotaan ma doonaysaan berrito criminalka ma taqaaneen dembiile inaad noqotaan ma doonaysaan waxaan la yaabay af soomaali ma fahmaysaan aniguna swedish ma aqaano saan isku fahmayna halla ii sheego war languagekaan ku hadlay ma fahmaysaan mise ma fahmaysaan dhallinyaradii yar baan sheegaya waa soomaalida waaweyn ma sheegay dhallinyaradii yar may fahmaysaan waxaan sheegayo okay waxaan idinkaga digayaa marka ma jeceshihiin inaad noqotaan dad oo criminal ah oo aan shaqo loo ogolan inaad noqotaan ma doonaysaan ka joogsada marka daraagiska iyo dhibaatada ka joogsada number 1 saaxiibada iskuulka ee meesha khatarka idin wada ee idinka waaweyn iska ilaaliya ma doonaysaan inaad AIDS ka qaadaan cudurka la yiraahdo ma doonaysaan yani AIDS ka ma la socotaan waxa uu yahay HIV waxa lagu yiraahdo ma taqaanaa human immune deficiency virus baa la yidhaahdaa human immune deficiency virus ayaa la yidhaahdaa yani jirkaanu wuxuu leeyahay waxa la yidhaha antibiotics ayuu leeyahay T waxa la yidhaahdo system oo dhaliya jirkan defensiga u dhaliya cudurkaasi waa cudurka ugu khatarsan ee muddo gaaban baabahda ka dhiga dukundaakun ka dhiga wey yow ku dhacaa markaan isweydiinay wuxuu ku dhacaa gabdhaha ama wiilasha israadsadoo dadka suuqa raadsada waa ku dhacaa weyga aad uga badbaadi kartaan waa guurka xalaasha wey bas ma aha aaminsanka keliyata maaha balaayada laga daldalayo hib hoobka ma aha yani dharkan ka hadlayna maaha weyga keliya ee looga badbaadi karaa waa guurka wey waa nature wey qofku inuu sagaska doonayo waa nature wey natural wey laakiin weyga uga badbaadi karo cudurka khatarka uga badbaadi karo qofka guurka wey number 1 ma doonaysaa yani waxaad ogaataa qiimee marka noloshaada qiimee cudurka qofka markuu ku dhaco waa yani life isbaanka qofku waa wax yar waaye aad u gaaban
marka iska jir spread baa samaynaya discrimination buu ku keenaya shaqadii waa laga discriminate garaynaya baawar baadan helaynin tawar baadan helaynin qoyskaagaan ku aqbalaynin aabihii qabaan la aqbalaynin hooyadii qabtaan la aqbalaynin waa dhibaato aad u ballaaran laakiin weyga kaliya oo looga bixi kara waxa weeye tazawwaju alwaduud alwaluud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah taas waa mid weey marka dhalinyarada gabdha iyo wiilalba waxaan leeyahay waa natural sagasku waa loo baahan yahay laakiin dariiq qaloocan ha ku raadinina guurka saxda ku raadiya waalidka waxaan leeyahay ilmaha afjiginino afka gacanta ha ka saarinina gabar iyo wiil midka uu yahay markay doonayaan inay guursadaan u guuriya gabadhii markay guursanaysa ha guursato nin aanay berite ooyin oo ilmaha hadduu u diido aanay ooyinin ee ilmaha hadday tiraa hadduu ii diido guriga nagiibuu geynaya haddaan ugu tana gurigii baan geynayaa waa in la guursado ilmaha isku jinsiga tiin waa inaad guursataan yani wiilashii gabdhahaba sidaasaan leeyahay maxaa yeelay haddii la guursado gabdha shisheeyaa la guursado ama wiilal shisheeyaa la guursado waxa weeye ooyintu inta waa ka badnaa doontaa burburkii baabuun inta waa ka badnaan doona waa in la ogaada taas ninkan waa soo islaaminaya waa been wey lama soo islaami karo gabadha waan soo islaaminaya waa been wey lama soo islaami karo jacaylka islaamka ku yimaada markii jacaylku tagow tagaa asaguna islaam maaha sax ogowtaa yani qisa dhacday magaalada Montreal anagoo joogna ayaa gabar Soomaaliyeed waxay soo gashay xero ayay soo gashay oo ka timid qaxoonti ah haween baa ka shaqeeya kaniisadda ka tirsan oo kaatooliga ka shaqeeya meesha Blackpool baa la yiraahdaa haweenkii meesha ka shaqeynay mid kamid wiil ay dhashay yaa gabadhii arkay gabadhuna xijaaban tahay Faransiiski iyo wixii buu kula hadlay way arkay inay taqaanaan Faransiis wuxuu yiri waxaan doonayay inaan ku guursado waxay tiri may anagu ma sameeyno waxaan doonaysid laakiin haddii arto inaad guursato waa inaad muslim noqotaa maxaan oranayaa buu yiri oo sidaa David waa sahal buu very simple buu yiri sidii buu yiri waa soo kaxay waa la ii keenay waxa la isku keenay mehri intaan baan ugu dhaqaaqay ninkii waxay tiri ninkan su'aalahan badan weydiinaysa mar hadduu muslim yahay kaliya ugu mehri ilaa wax la soo dhoobay weey taasi ma soconaysa hadda war islaamka ma qaa maxaad ka taqaanaa wax badan kama aqaan laakiin waa jeclahay islaamka aniga muslim waa noqdo la ilaaha illa muhammad rasuulullaahi aan ku noqday ilaa waxay 10 maalmood u soo aqrinaysa weey ma tukataa salaada maya inta salaadu qofka muslimka ku waajib ku ama taqaana maya maxaa qofka laga rabo diinta soo galo ma garanayo ninkaani gabadhaanu rabaa bas wax kala ma rabo waxaan ku yiri saas diin ma he na gabar yahay naftaadana been ha u sheegin dad kale been ha u sheegin meel joog may bay tiri nin bay u tagtay Suudaaniyo ninkii waxay tiri ninkaas aan u tagnay sheekha Soomaaliga waa naga diiday isku keenay meer hadii kale ninkan adeeran raacaya waa Sheekh Cabdiraxmaan yiraahdo waa isku meeriyay waxa ka dhiman bishii Ramadaan markaasi taqriiban biliya bar yaa ka dhiman biliya barkii la gaaro Ramadaanka yimid tiri soon waaye hel buu yiri diintaada ma diintayda aniga ka fiican markaan diintaada galay baahi isu dilay maana wala oo maxaa dhaasoo taatir waan islaamaya ee waxaan doonay waxaan maryahan ku qarinayso hoostooda inaan ogaado yiri waan ogaado kuwa naga kama fiicna buu yiri kuwa naga kama fiicna buu yiri kiinaaba dhib badan uu yiri yani kiina dhib badan ta macnaha oo la soo guday oo la soo hawshaas ka wada kiinaaba dhib badan uu yiri marka keenna ka fiican uu yiri halkaas ayadu oo inay sameeyay daba soo waaday Sheekh Maxamed oo arintii saas ay ugu dhacday amsaasa kugu dhacday waliba ugu darad istaashaan ku eri ma dhacay saas leeyahay waxaan qooqi waa ku daayay hadda marka ka gurbaan adu waaye qooqi waa ku daayay markan kula hadlay aqligu miskow kaaga jiray hadda maskaxda kaaga soo noqday hadda wax iska qaba baan ku eri adu aqligu miskow marna kaaga jiray marna madaxu kaaga jiray hadda marka hor miskow kaaga jiro waxba igama maqlaynin laakiin markuu miskiin aqliga ka soo baxo madaxa ku soo noqday hadda meel wax ka qabata adu wal waxaan leeyahay marka arinta ayada waa in laga fiirsado waa soo islaama ninku waa soo islaama iyo waa gacalow iyo waxa soo dhan kalam faadi weey gabadha waa soo islaamina iyo waa gacalay iyo waxa soo dhan waa kalam faadi weey quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay wala tankihul mushrikaati hatta yu'minna
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحكوا عدينا سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات هجرسنين هوينك مشركاتك حتى يؤمننا إلهي كرم أيام ولا أمة مؤمنة أدون مؤمنة خير من مشركة أيضا كخير بدن مد مشركته ولو أعجبتكم مشركته انت دونتها قروح بدناته قبل مؤمنة داها كخير بدن بيقول إلهي سبحانه وتعالى إلهي خلقيا سيدا نوكل شيء عدينيه marka adigu hadal aad soo quruxsatay waxba kuma bedeli kartid ogow wala tankihu al-mushrikiina hatta yu'minu warnimanka mushrikiintaana ha u guurinina ilaa ay ka rumeeyaan wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin adoonka mu'minka ka khayr badan midka mushriga ka khayr badan walaw a'jabakum haba idin cajab geliyo haydin la qurxoonad haydin la wanaagsanaado ninka gaalka ah adoonka muuminka ka khayr badan lee ulaa'ika yad'uuna ila an-nar bi ilaahi subhanahu wa ta'ala intaas waxay u yeerayaan naarta idin kugu yeerayaan wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi ilaahayna jannadii idin midhaaf idin kugu yeeraya waxaan marka runtii aan doonayay inaan helo muqaddaraadkan iyo dhibaatada oo leeyahay oo dadku dareensanayn laakiin waxa muqaddaraadka ka sii dhib badan oo ka sii xoog badan culture-ka iyo dhaqanka inaan fahamno oo waalidku ay fahmaan ilmahan inay ayagu keeneen society-ga ilmuhuna inay macallin oo society-gu u yahay TV-gu inuu macallin u yahay internet-ku inuu macallin u yahay qofka shaarica maraya inuu macallin u yahay inuu macallimadaasi inay gaarsiiday macallinka iskuulkii iyo macallinka jidka iyo macallinka telefisyoonka iyo macallinka joornaalka inay ilmahani macallimiin u yihiin oo annaga oon physically nala soo hoydaan inaan fahamno keliyata gabadhiyo wiilba waa sidaas oo kaleeto waxa la qurxoon waxa ay mujtamaca ku arkayaan wax ka hadday daba ay ka qaloocan tahay daba ay miyay yaqaan ciyaalka yararka daba ay daba qalooci mid yar oo la wato rabaayaday arkeen marka waxaan leeyahay waalidiintu fahma caruurta aad haysataan fahma aqliyadooda ma fahmi karnee hal diyaariyo dhalinyaro fahmaysa dhalinyarada oo ku daa inta badan oo diinta wax ka taqaana oo maanta markaysa xogogaal ahaan u waraysta oo la xalliya mashaakilka ay dareensan yihiin la xalliya waxaan leenahay ilaa hadda wax la yiraahdo peer counseling wax ingiriisku ku yiraahdaan peer counseling ilmaha kula daadaah oo kula taliya gabadha waxaa la talinaya gabar kale oo ag fadhida haddii gabadhaasi wadaad ay noqoto alxamdulillah wadaad kale taa la talisay weeye hadday mujrimo tahana balaayadii ay haystay ku dhuraya waa sucbaan mas meesha u fadhiya weeye laakiin ma dareemi karna annaga midna ogaada nature-ka rabitaanka nature-ka yani waxaan sheegaa abuurista rabitaanku waa isku mid weeye ragga iyo dumarka mid kastaaba xataa muslimba ha ahaatee gabadha muslimadda waxay rabtaa sida gabadha kaleeto inta ay quruxdeeda ay haysato kaleeto inay haysatay doonaysaa kabtay gadanaysa inay gadatay rabtaa make-uptay gadanaysa inay gadatay rabtaa daayatka tintay marsatay rabtaa kreemka inay marsatay rabtaa wax allo waxay qaadanaysaa cabuurkay xiranaysa inay xiratay rabtaa sarwaalkay xiranaysa inay xiratay rabtaa matantay xiranaysa inay xiratay rabtaa si kasta haddaad yeesho taas waa nature-ka weeye waa nature weeye maxaa yeelay qofkaana hogaamiya hooyada kuma dayanaysa gabadhan ku daadahay ku dayanaysaa wiilkana saas oo kaleeto sarwaalka hip hopka iyo dharkan socda ayuu rabaa modelkan uu doonaya inuu qaato arrinta ayada marka waxaan leeyahay يعني language كان هذا القرآن ما أنت نقول دلنا حديث كل دلنا إلى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذان إرادو عيالكم أنتوا لن مفهميان حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام مفهميان وما أنت ماركيسا ميلو رقاتشان قرن مايان ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة حديث كي متفق على رسولك عليه الصلاة والسلام ساسولي وحان مركا لا هي حلقي سولوشن كوامح
xalliga iyo solutionku waxa weeye okay xalliga solutionku waxa weeye waalidiintow carruurtii adinka waxaa idin dhexayda haadaan weyn oo fahmaa idin dhexeeya haadaan weyn markaan leeyahay gaab weyn baan idin dhexeeya noo dhexeeya hooyo kastoo halkan ka tagtahay hablaha ay haystay wiilasha intaba ha shiriso ha tiraahdo waxa aad doonaysaan hadda maanta wixii ka dambeeya ha iga qarinine waa idinla xallinaa idinkuna canaanan maayee ii sheego ha iga qarinina waa idinla xallinaa haddaadan hooyada inaad u sheegto doonaynin habaryartaa u sheeg dheh habaryartaa u sheeg dheh eeddadaa u sheeg dheh in adeertaada kaleeta u sheeg dheh in abtidaada u sheeg dheh waxa aad doonaysa ha lagula qabtee ha qarsanindhe gabadha ku dhiirigeli arrintaa iyadaa qaar waxay ku leedahay aabbaa gabar laga soo doonayaa oo nin raga usu haystaa mana oga xabad inta aan sheega kalama socdo nin raga iska dhigay mar alla markii gabadha laga soo doonto bakoorad qaato uu leeyahay way yartahay oo weli jaamacaddii may gaarinini ii dhaaf jaamacadda ha baratee jaamacaddaada god kula dhacdhe wuxuu ka ogyaa male gaal wadaya iyo muslim wadaya iyo guri joogtay golo joogtay xabad oo kala socdo male soo doonadka u fadhiyo aminkii soo hoydaa xabad kale ma oga laa emerson haddaad weydiiso odan aqoonin walaa internet haddaad weydiiso odan aqoonin walaa cidday la hadlaysay languagekeedu usan aqoonin markaasuu ku leeyahay dee gabadha waxa weeye inan ciddii reer hebel waa in laga waxaasuu ku hadlaya maanta oo idin maya ma xukuntide markii lagugu yimaado sii mana sii kartid ilaa iyadu inay ku tiraado waan rabaa moogay yani waagii soomaaliya gabdhaha la waa la soo doonay heblaayo oo nin baa la siiyey maya maaha hadda inay kuu keento inay iyadu kuu keento maahee adigu nin ma sii kartid ma xukumi kartid waad aragta soo maaha waana lakaga baawar badan yahay waddanka waana lakaga awood badan yahay waddanka weyga ugu dhow waxa weeye inaan ilmaha anagu friendly la noqonno saaxiib la noqonno oo aan la xallino aasaasan ugu dhow waxaan ku soo gabagabaynayaa dhaqanka dhallinyarada waddamada reer galbeedka arrin sahlan maan run ahaantii arrin u baahan weeye assets aad u fara badan ilmaha luqadoodii bara luqadooda keliya ha barinine waxaad bartaan dhaqankii gadaaloo ayna iyagu waxba ka aqoonoo midkaad xambaarsan tahay wax badan ka bara ilmaha waxaad kaleetoo ku guubaabisaa ilmaha ha u qaadanin sidaad adigu u dhaqmaysa iyo anigu aan u dhaqmayna inay u dhaqmayaan ha u qaadanin tixgeli dhibaatada ayagu ay faysgaraynayaan iyo dhaqanka ay faysgaraynayaan tixgeli intaasaan maanta galabta ku soo gebagabaynayaa marka khamrada iyo afyoonka iyo xashiishka iyo maargwaanada iyo mid walba inaan wax ka idhaahdaan doonaya diiniyan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo maanta cudurrada ay leeyihiin sayda factiska badan ay leeyihiin taas waa mar waxaa laga yaaba sanadka hore inaan ka hadlay waa dhici kartaa laakiin midda aan aad ugu celcelinayo gabdhuhuna aad ay iimeello badan iigu soo direen wiilashuna iimeello badan iigu soo direen taasay ka mid ahayd midda aan doonayay oo aan suuro gelin aan raba inaan runtii gabdhihii iimeellada ii soo diray iyo wiilashii intaba aan u sheeg waxa weeye waxay iiga mahad celiyeen inaan kal horeeto ku niqaashnay meelaan aabbiyayaalka hooyayaalku jooginin galabta hadda adinkaa iga xirteen arrintaas maxaa yeelay waxay ahayd inaan dhex fadhiisto wiilashii gabdhaha dhexdooda fadhiisto marna gabdhuhu ii sheegaan waxa meesha ka socda marna wiilashu ii sheegaan wax meesha ka socda sida laysu dhakrayo ilaa waa laysisirayaa soo maaha jiitinki badanaa ka socda meeshii hunuun fara badan baa jirta hunuuntan ama murugtan gabadhu ay ku dhex jirto hooyadu kuma dhex jirto maxaa yeele isku saaxiibo maaha isku bii'a maaha isku luqa maaha isku dhar maaha isku communication maaha wiilkuna sidoo kaleeto waddan waxaan ku soo kornay xalaal ah oo aan gayas iyo lesbian midna lahayn waddankan gayska iyo lesbianka ayaa waddamada ku badan reer galbeedka weliba aad ogtiino inay sharciyaysteen oo ayaga qaanuunkoodii ay samaysteen ay weliba isu oggolaadeen maanta marka meel aad joogto nin loo guurinayo ama naag loo guurinayo markaad meeshaad joogto ninkow doona ha ahaadee qofkii ninahoo muslimoo gabadha inantaada kaa soo doona inaad sidaa waajiba ku tahay si degdeg ah weliba wiilkaaga hadduuba gabar doonayo inaad degdeg ugu guursaa waajibay kugu tahay waxaan leeyahay weli ma aanaan fahminin dhaqankii yani aanu ka nimid iyo caadaadkii taqaaliddii yaa weli seef adag nagu hayo dhib badan nagu haya marka taas ayaan doonaya arrintaa inaan wax yar aan intaas ku gebagabeeyo
waxaad arkaysaa runtii 50 gabdhood baan ka soo qaxiyay magaalada la yiraahdo Geneva oo Talyaaniga 1995kii 50 gabdhood oo Soomaaliya yani tareen raac markaas in sharci ma haysano ladinku waxay sidii wadaadadii baan u soo waayay wadaadadu waxbay xirsi xiri jireen la dhigi jiray quraankan ku aqraa gaalada inay qaban kulligiin tareen raac oo meel niman ka guursadaan muslim orda aada oo ingiriiskan iyo yurubtan kala gala waxa la yiri way hadina la soo qabto waan ana idin aqrin quraan baan ku aqrinaya socdo baan ku yiri way soo galeen qaar bay marti qaadayo guursaday London waxaan sida u leeyahay haddii aanan saadicinin waxaana arrintu ku dhacday 3 gabdhood oo xijaabnaayeen aan niman Talyaani si u aamusnaayeen bay baf la yiraahdeen gabdhii xijaabnaa waayo gabadha nin bay doonaysaa ha xijaabnaatee baahida ay qabtana ma sheeganayso cid ay kala shirtana ma taqaano hadday arrintaa u sheegtana inta gaararkeeda joogto waa ku ceebinayaan soo xabsi maaha markaas xabsiga way ka boodaysaa markay ka boodana dib dambe loo arki maayo gabadha haddaadan doonaynin dib dambe loo arkinin waa inaad arrinteeda la socoto xogteeda la socoto sidaas oo kale ta weey wiilasha haddaadan rabin inay maanta markaysaa niman gaala ahi ay hadadaan oo lacag ku qaataan oo baabuur ku qaataan haddaadan doonaynin waa inaad maanta markaysaa iyaga naftigooda ilaaliso meeshii aadayeen iyo meeshii joogaan la socda yani intaasi waa wax yar oo aan ka taabtay mawduuca aan rabay inaan ka hadlo laakiin mawduuca mukhadaraadka iyo diintu waxa ay ka tiriyo mar kale ayaan ka hadli doonaa waayo social ahaan ayaan u address gareeyay mawduucan laakiin xagga diintii iyo dhaqankii diintii islaamiga ahayd iyo xukunkeedii iyo mashaakilkeedii ka mar kale ayaan ka hadli doonaa wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاه الله الخير خير الجزاء محاضرة قيمة ونص جدي شيخ محمد رشاد وربطيها محاضرة أقيم بدن وحي له ودسينا يوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنت كذب وحوي سؤالي يركبا عن بدنين باكرة شيخ واحد نقول بورين ليس قبله ها قرصدان وهذا ولش يهين كوا غير مسؤولة محن قرصنا واستحوي سؤال سهل ولذلك لما كان نقص وجهي حتى كلام كلام ما في بين يومين إن أنا والرسول كل مسرع إن بسيطنا على كلام وشيء وشيء قاعد نتكلم إن بسيطنا يا رب يا رب هو يكفي marka haday noqdaan wax ma tareen haday noqdaan wiilashu ee waa nasiib darro weey odayaal waaweyn waxa ma tari karaan gabdhaha yararka way loo guuriyay wiilasha yaryar hadaan rag ahayn dee maxaa la samaynayaa weey runtii taas waa khasaaro weyn weey run ahaantii khasaaro weyn weey marka wiilasha farbaa ku mudan fartaas waxa ka bixi doona sanad ka dambeeto inaan arkaan doonaya markay ugu yar yihiin 20 wiil iyo 20 gabdhood oo isguursanay inaan ugu imaadaan doonay meesha period marka imiseen baa diyaarinaysa 20 wiil oo diyaarsan doonay oo farta taagto tira sanadka dambe diyaarana ma la helaya imiseen wiil 20 wiil oo sanadka dambe tiraada hadii gabdho naloo helo waa guursanayna farta taaga koow haye koow labo saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban wow waa la batay marka nin aan rag ahayn gabar ku dari maayo nin aan rag ahayn gabar ku dari maayo gabar aan rag ahayn wiil ku dari maayo واي aan sidaas u leeyahay waxaan noo ballan aayadan quraan inaad soo barataan marka kulligiin aayadaas quraan haddaadan soo baranin ee hadhow imtixaankeeda ku dhacdaan hadhow gabdhaha idin guurin maayo wiilashana u guurin maayo waa maxay الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. آية القرآن مية مسماها، آية القرآن متى مسماها؟ ويلكي يقانو سورة دي شيء كرا ما أحزاب أقول عدين موسى هدوايه وسورة دوي سورة النور والمقلصومة سورة النور وي. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها خبيثات ولي قبلها الله هرمان يسمى مغلسة. الخبيثات للخبيثين قبلها خبيثات كاهن وعن دور سنين وعن ضدهان تلهين نمن كان دور سنين وليته أي وبنايهم بالي أيها حقوا لوي. والخبيثون نمن كحنحنهم في عنيننا وغير مسؤول كأهو خمرة عبوه دراجس كعنوه قشن كار للخبيثات يويهن. والطيبات قبلها وناكسن وأخلاق دل أو دورسون وأندرك بكلب بدلنين لبدر أن بورصة قوة دنين وأن كلابس كتجنين وما أنت مركز أنا خيانة كل دقائقين. للطيبين نمنك وناكسن ونظيفك ومساجد كتو كذا قررك لها يحقوا ليهم بالي إلا نكاس أبن نقو كرأ نكاس أبن نقو كرأ والطيبون نمنك وناكسن ورجع أنا ومسؤول كان للطيبات يوفعيه مركم وحنا نذكر عن إنا نقولنا ويلي يكبر بقى لبدا آية لبدا قيبات كان رنا إنا نقولنا ما مد هرم سميت الدمبة تندمبة مركم وحنا نوبل لنا ويك صوص عدا لباتن ويل أو ديارة يا لباتن قبضات أو ديارة إن هل إيميل كي يقف كان نقوله نقرأ إيميل كي يقول محمد رشادي @hotmail.com وأن قرية هدان لباتن كي لباتن أفرتن كامر كان هلو سنة كدمبة حتى مؤتمر كانوا لعقوا صوتنا ما ندين إيمانية سوما قبله يعني أساسا كدونية يعني وحن دونية رنتي ضد يارسن أو رجع أيان دونية وحن كعد سنة يا مؤتمر كقولة قبل قابين سي جودجا الشيخ عبد القادر كمديهين إن أي سمايان سنة كان وحي كدم بيا لجنة اللي يرى مجا عيد اللجنة اللي يرى سجورين تد اللي يرى اللي يرى إن سمايان اللي يرى كلية ما رنتي واحد شو قبل بدن رنتي قبل بدن أي جوجا أو أما عرور لأمان عرور لهين قبل أتين أجر كواوين ودونية أما جور كورة كريت كلا كل ما يدب ينمنا في عنان كلا كل ماي نلاشي فهمي منك نلاشي فهمي قرنا يجور كنو قيمة ليه قرنا يا حياة الزوجات وحايتهاي دونية نين صالح وناكسن أن مرض بقوع يارين دونية dadkiina la isma yaqaan runtii marka waxa lumay trustigi baa lumay gabdhihiina trustigi baa ka lumay oo nimankii hore maadaama xanuun badan ka qabsada trustigi baa ka lumay aaminidii ka luntay niman badanna trustigi baa ka lumay gabar fiican ma wali heli weyda cadaabtii kale ku dhacdaaba asagana ka luntay waxaan doonayaa marka in lajnadaas oo ayaguna dadka maanta gabdhaha marwooyinka iyo nimanka oo guurdoonka ah raba inay xalaalahan u degaan la isu guuriyo waxaan doonayaa marka gabadhii yey la soo xariiraysa hadaan telefoon jirinin yey la soo xariir ninkiisa iyo la soo xariir hadaan telefoon jirin marka waa in la helaa telefoon halka ku yaalo ah gabadhii iyo wiil ninkii doonaya guur doonayo telefoonka la soo xariir in la yiraahdo ma sha Allah dadka waa daalayeen marka soo gaabi waan soo gaabiye khalaas waan soo gaabi sheekh waan soo gaabiye dadku waa daaleen gaadiid ayaa la raacayaa waa sidaas weeye waxaan doonayaa walaalayaal marka yaa maanta bal dhalinyarada u kaadi sanadkooda ma ayaga hataa waa sheegeen yaa maanta rag oo doonaya inay guursadaan 10 gabdhood baa jooga oo raba inay guursadaan yaa maanta diyaar oo rag ah oo iska gooynaya wixii la oran jiray waa la iska gooynaya kow oo guurku dhab oo kaya guurku yow dhab kaya kow iyo laba saddex
afar shan lix waa fiicantihiin marka u keena sheekh cabdulqaadir oroburo u keena iyo lajnada gabdhaha qoladii doonaysaay hayla soo xariirin aniga okay taas marka waa sidaa weeyahay waa joojiya la yiri بارك الله فيك وحدي شيء يا رجال قبل ما نجوك بارك الله فيك جزاه الله خير الجزاء بشاره وين قبل الله هاي waxaan ugu bishaareynaa in rag badan ay jiraan guurdoona waxaan ogeysiinaa haddii alla idmo berito inay maxaadar jirto ku saabsan guurka iyo dhalinyarada oo aan su'aalo badan ku soo qaadan doono